marka hore alla mahadle waxaan joognaa tuuladii Ceesha waxaan ku wareysideynaa raashinkii Boqor Salmaan annagoo hay'adda kayd raashin qaranka waxaan heerka tuulada ku wareysiyaa 30 qoys raashinkood waa dadkii abaaru sameeyeen oo dadkii jilicsanaa ee lagu talagalay in la siiyo dadka jilicsan marka 30 qoys ayaa maanta ku wareysideynaa heerka tuulada marka aad iyo aad buu mahadsan heerku dadkuna aad buu mahadsan yihiin Allah mahadle deeqdana loo keenay ee ay noo keeneen qolada kaydka qaranka waanu ku haynaa 30 qoys alxamdulillah rabbil caalamiin waanu ka gudoonay si fiican baan uga qaadnay wasida bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Allah mahadle marka labaad hay'adda qaranka kaydka raashinka waxaanigoo ah hayrkii tuulada Balxaga waxaan ka gudoomay oo aan ka hayaa 30 qoys hadii Ilaahay ka dhigayo loogu talagalay dadka abaaru saameeyeen ee danyarta hadii Ilaahay ka dhigayo waan ka gudoomay way noo timi raashinkaas uu noo yimi alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay baa mahadle assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah hayrka Timo Weyne inaan hay'adda raashinka qaranka ka qaatay ka gudoontay 30 qoys oo ka yimi Sacuudiga sidaas waa ku mahadsan yihiin cidii imanka soo dirtay iyo cidii mar dambe wax noo soo diraysa waa ka gudoomanayna waana ku ammaan yihiin ilaahayna jazaa khayr laha ka siiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alxamdulillah rabbil caalamiin 30 qoys oo keenay hay'adda Boqor Salmaan ayaan kala wareegay kaydka raashinka qaranka waa mahadsantii bilaaba aamus bismillahir rahmaanir rahiim waxaan joogaa tuulada kala dhac heerkeedii wala jooga waxa ku wareejiyay 30 qoys raashinkoodii dadkii dayartaha ee lagu talagalay in la siiyo raashinkan oo soo dhiibay Boqor Salmaan bixiisina hay'adda Netford aad iyo aad u mahadsanyihiin tuuladu فيسكي ugu dambeeyay tuuladii ugu dambeeyay ayaa weeyaan tuuladii ugu dambeysay ee kala dhac waran ya harweyn wisil maanta tiimkii ugu dambeeyay aanu qaybino xaga ku soo gowday mashruuci Boqor Salmaan ragax ku wareejiyay gudoomiyaha heerka degmada السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ka gudoonay raashinka caawimada soo bixisay Boqor Salmaan yaan la soo gaarsiiyay maanta waa u mahadnaqarnaa jaalay